waan idin salaamay saaxiibada qaaliga ah waxaan aad u la yaabay inay dhammaan culimada wallow qaarkood ay si reaction ah ay u soo qaadanayaan dagaalkan laascaano ka dhacay ma jirto hal nin culimo ah ee ka aamusay bal way ka wada hadleen kulligood su-aashan isweydiiyey waxay tahay wallow sheekh umul غير الله سيه ميزان كيس حسناتك إلهي سبحانه وتعالى هكرديه وحو يري حداد ربطان سومالي دا قبيل باد ودغيسان كهدلك ان كهدلا يلاس عانو بلسي انيغا يلكديده وان كهدليا كامسي مايو magaalada laascaanood iyo dagaalka ka socda la tilmaamo wuxuu yahay dadkii deegaanku markay u adkaysan waayeen oo sabri waayeen oo ka kacdoomeen oo mudaharaad ka kiciyeen oo arintii ka gadoodeen jawaabta la bixiyay ee xukuumaddu bixisay ma habooneen inay noqoto dadka in xabad lagu rido la laayo ma ahayn saxna ma ahayn dad aan hubaysnayn oo mudaharaadaya oo qayliyaya oo xaq raadinaya in xabad la dhacay ninna garowsho ku heli maayo iyaduna sax ma ahayn mowqif sax ma ahayn gartu allay leedahay gari allay leedahay midda saddexaad waxay ahayd markay odayaashoodii iyo khiyaartoodii intay isu yimaadeen ay tashadeen go'aan ayagu ay maslaxa bideenna ku dhawaaqeen oo aynay Soomaali weyntaasi qayb ka ahaadaan ayadana ma ahayn jawaabta la bixin lahaay mana munaasib kuma ahayn in dagaal lagu qaado madaafiic lagu garaaco sadeeyo anoo og Soomaaliga maanta joogay akhrintiisa iyo daraasadiisa iyo fahamkiisa iyo miisaankiisu inuu qabyaalad yahay oo in badan ay dhihi doonaan wadaadka waxa ka hadlinaya waa qabyaalad iyo dhalasho anoo og ayaan haddana aan dan ka lahayn sheekhow khayr allah ku siiye waxa la doonayaa Soomaalidoo dhan inay ku sinaato marka hore dhulka Soomaaliyeed inuu ku wada sinaado oo ay ku noqdaan mid wada siman laascaano ku farxi maaya dagaalka ka socdo wiil iyo abtigii ee ku dagaalamayana inay isku dilaana ku farxi maayo dhiig Soomaaliyeed inuu ka dhacana ku farxi maayo laakiin su'aashan qabo waxay tahay wiil iyo abtigii baa magaalada markay gobolka Shabeellaha isku dilay hal sheekh ka hadlay ma jirto hal sheekh soo qaatayna ma jirto bal culimadoo dhan maanta way wada qaateen su'aashaydu waxa weeye oo aan ku soo celiyay su'aashayda tan i xanuujisay waxa weeye culimadu miyay reereenayaan mise dhammaantood waxaa dhiba in dhiig islaam uu daato su'aashaasi adinkan idin weydiinaya balse marka hore muuqaalka ila dhamaysta oo ila soo daawada waxaan rabaa dhowr fariimood inaan diro fariinta u horeysa waxaan rabaa inaan u diro madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxaan dhageystay madaxweyne hadda ka hor sanadkii hore shirkii Ansaaru Sunna ay ku qabatay magaalada Hargeysa culimadu markii ay ku qaabileen oo qasriga madaxtooyada ku soo dhaweysay adigoo sheegaya inay ku qaban karaan culimada Soomaalidu gaar ahaanna waliba magac dhabay Sheekh Mustafa iyo Sheekh Xasan Cabdisalaam sida aan xusuusto haddii runta laga sheego nabadda fiirka koobaad waa culimada Mustafa iyo Xasan bayna fadhiya iyo inta kale anagoo jabhada gaar fadhina ayay hadda taagnaa qalabka jirtaa kada waa nimanka noogu dhiiran maanta haddii qalab wax laga tirsado oo madaxweyne abadooda qaldan nimanka aan cid wadaynta albaabka ka dhuftaan dhig waxa hayso waa iyaga saaxiibtuna way ugu dhici karaan aqoon way ugu dhici karaan go'aankooda waa misalan dareysanayo waxa ka hadlaan dad qaraa'id marka qaarkood aan isku diidanahay marka culimadu heerkiisa joogaan iyaga kowka maanta waxa rabnaa inay ku qabtaan culimada Soomaaliyeed oo dhan oo shanta Soomaaliya ayaa waxay ku leeyihiin madaxweyne jooji dagaalka adiga ayaa dagaalka joojin kara oo wada jooji in la joojiyana waa waajib in dhiigga islaamka qubanaya la joojiyay waa waajib
cid ka faa'iidaysa ma leh caaqibadiisa adduun iyo aakharana waa cidhib xumo weeyaan waxaan rabaa mesajka labaad inaan u diro culimmada soomaaliyeed oo iyagu qabiil gaarana aan ahaynee culimo la yidhaahdo inay soo baxaan oy ka soo safraan meelahay joogaan culimmada hargeysa inay soo baxaan culimmada garowe ay soo baxaan culimmada muqdisho soo baxaan kuwa gobollada kala jira soo baxaan ciddii soo gaari karta dhan yimaadaan goobta dagaalku ka dhici ee masaakiinta lagu gumaadii ay soo dhex istaagaan cumaamadahooda iyagoo wata halkaana dagaalka ay ku joojiyaan waan hubaa dadka soomaaliyeed waa dad sharaf badan inaan culimo la laynaynin oon loo badheedhaynina la joojinayo marka culimmadu yayna ku ekaanin eraya inay soo diraan ama ay meela ka hadlaanee ficil ha ku daraan hana soo istaagaan goobta dadweynaha shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay meelaad joogtaanba dadka maanta laascaano ku barakacay ee geedaha hoostooda fadhiya gabdhaha isbitaallada gudahoodii daawola'aani ku hayso kuwa odayaasha ee duqooshinka ee meelaha dhex jiifa dadkaasi caawin bay inooga baahan yihiin muslimku muslimka kale waa la dareen waa in la caawiyo loo istaago maraykankan annagu yaan joognaa meesha ugu fog maanta dunida yaan joognaa masaajidda ku yaalla oo dhanna waxaan amar ku wada bixinnay inaan maanta ka istaagno oo jumcadoon lacag uruurin aan ka samayno waana u uruurinay kuwa dhimanna waa laga uruurin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala musaacadadan tii ka horraysay waxaan u uruurinay suuqii weynaa ee waaheen ee ku gubtay magaalada hargeysa sidaas daraa lacagtii ugu badnayd oo North America laga qaadayna waan geynay sidaas daraaddeed dhibaata hadday ka dhacdo hargeysa hadday ka dhacdo laascaanood hadday ka dhacdo garowe hadday ka dhacdo muqdisho hadday ka dhacdo boosaaso iyo hadday ka dhacdo kismaayo iyo baydhabo iyo meel alla meeshii shanta Soomaali joogaan waa u taaganahay waan garab istaagnahay dadkaas inaan maanta caawinayo waajib bay noogu tahay masaajidda ha laga kaco xaflada ha la qabto dadku ha is abaabulaan gabdhuhu guryaha ha garaacaan walaalaheen maanta banaanka jooga daawola'aan yayna u dhimanin cuntala'aan yayna u dhimanin oon iyo dartiyayna u dhimanin aad baad u mahadsantiin meelaad joogtaanba intaas waa intaan meel walba iyo masaajidaba ka sheegnay iyo khudbooyinkii maanta waa mahadsantiin wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad u soo daawateen una soo dhammaysateen muuqaalkan aynu ugu hadlaynay dhammaan geyga Soomaaliyeed inaynu mid ka noqono markuu dagaal dhaco inaanan la reereyn oo laga hor yimaado dhiigga islaamka meel walba ku daadanayo inaynu mid ka wada noqono reer laascaanana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa in dagaalka dhex yaala inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dhexdooda qaboojiyo wiilka iyo abtiga xagga ku dagaalamayana inuu labadooduba ilaahay kala dhex dhigo qabow iyo ammaano iyo nabadgelyo sidoo kale gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Marka magaalada aanan culimo u hadlin doctor u hadlin siyaasi u hadlin aqoon-yahan u hadlin wariye u hadlin ee loo wada aamusay ilaahay waxaan ka baryeynaa walaalaha wada dhashay ee ku dagaalamaya ilaahay eedana dhexdooda qabow ha dhigo waa magaalo laga wada jeestay culimadu ka jeesatay siyaasiyiintu ka wada jeesteen loona hiilin waayey labada reer ee wiil iyo abtigii ah in maantay Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Marka in la yiraahdo war idinkuna dagaalka qayb ha laga noqdo sida looga joojin lahaana waa garan weyseene ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga garanaya maslaxadde ilaahayow ayadana magaaladaasi ammaan iyo barwaaqo iyo nabadgelyo ku soo celi aad iyo aad baa u mahadsantihiin